kulan wacan daawada waxaad kusoo dhawaataa janaalka le waaye filmis oo aad kaga barneed warbixinada ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. maqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa mid ka mid ah directorada ugu guulaha badan ee Hindiya, sidoo kalena film sameeye magac ku leh Bollywoodka. filmkiisa koowaad ayuu adduunka ku qabsaday, waana film ka mid ah filimada lagu jecel yahay Hindiya ee ka hadla jecel dhexmaraya arday isku college ah. waana filmka Kuch Kuch Hota Hai ee ka wada soo muuqdeen Shah Rukh Khan, Kajol, Halka Rani iyo Salman Khan ay muuqaal marti ah ku lahaayeen. qofka lamaahe waa Karan Johar. warbixintan ayaa kaga hadli doona sida uu ku noqday shaqsigan guulaha u saaxiibka ah iyo cabsida ka hor gudbanaa. waraysi uu bixiyay ayuu arrintaasi kaga hadlay. waxaan u soo dadaalay inaan noqdo shaqsi lugihiisa ku istaaga, aan aqbalo waxaan ahay iyo duruufaha igu hareereysnaa. marnaba nafsadeeda uguma aanan dhaqaajin si nolol ay dadka wax ka sheegaan amaba ay xukumaan. sidaas daraadeedna waxaan sameeyay waxaan ka helo iyo waxaan jeclahayba. Karan Johar ayaa qabtay barnaamijka ugu xiisaha badan uguna caansan oo ay shaqsi walba inuu ka soo muuqdo jecel yahay, waana barnaamijka Cafe with Karan. waana mid waxyaabo muran dhaliya had iyo jeer lagu hadlo. Karan Johar ayaa sidoo kale waajila wuxuuna la hadal ka ahaa filimka ugu guuldarada badan ee Hindiya, Mumbai Films, oo uu asiga wax ka qarash gareeyay. xidigan ayaa ka hadlay sida ay isku yihiin ciyaarta ama dheesha. haddii aan rabo inaan masrax ka ciyaaro oo aan qoob ka ciyaar ku soo bandhigo, maxaa le waxa ahay film sameeya, waxaa la yidhahaa film sameeya ma ku ciyaari karo barnaamijyada reality showga ah. maxaa yeelay taasi ma ahan wax loogu bartay film sameeye, laakiin yaa sidaasi dhahay. waxay kaloo leeyihiin kuma qasbana inuu qabto barnaamij talk show ah. film sameeyahan ayaa filmada oo soo saaray waxaa ka mid ah Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kal Ho Na Ho, My Name Is Khan, Kabhi Alfidna Kehna, Mumbai Films iyo filmo kaloo caan ah. xidigan ayaa saaxiib dhawaa wuxuu leeyahay Shah Rukh Khan oo inta badan filmadiisa ka soo muuqday sida Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kal Ho Na Ho, My Name Is Khan, Kabhi Alfidna Kehna. wuxuu sidoo kale muuqaal marti oo ku lahaa filimka Dilhe Mushkil oo uu Karan Johar director ka ahaa. warbixintan intaas ayaan ku soo xiriyay. haddii aad ka heshana la wadaaga asxaabtaada.